السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawareysaan soo dhawaada barnaamijkeeni labaad maanta waa axad taariikhduna waa 10 May 2026 wararkii ugu dambeeyay soo kordhay tan intaynu kala maqnayn aynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa warbixinada barnaamijkan idinku wayno waxa kamid ah ugu dambeyn Iran oo u gudbisay Pakistan goor dhaweey fakarkeeda wada hadalka ku saabsan ee uu Mareykanku muddo sugay laakiin la taliyaha aayatullaahiga ayaa war cajiiba ka soo daba tuuray haddaba sheeko la yaab leh sida wax la isu dhaafsaday iyo warka gadaal ka yimid iyo wararkii ugu dambeeyay barnaamijkan idinku haya dhanka kale sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegay Ingiriiska iyo Faransiiska maraakiibtan ay keenayaan Hormuz ee ay leeyihiin maraakiibtan ku caawinayna annaga iyaga il iyo aragtiya naga dhaxayso nagta ka saarayna sheekadaasu iyana waan idin hayaa waxa soo kale aan idin soo gudbin doonaa Shiinaha oo isna hunguri uga jiro khaliijka inuu soo dago kadib marka Mareykanku halka ka baxo Shiinuhu wuxuu aaminsan yahay Mareykan inay halka uga dhamaatay oo Iran ka cayrsatay oo sii socdo haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad maanta axada ku faahfaahinayna inta aan ku jirnana wuxuu warar soo kordho waan idin la socodsiin kulanti wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta axada taariikhduna waa 10 May qodobadii soo dhacay tan intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku soo gudbinaynaa ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa Pakistan oo sheegtay inay Iran ka gudoontay jawaabtii hindisihii Mareykanka kadibna jawaabta ay u gudbisay Mareykanka Pakistan waxay leedahay annagu sideedaba dhexdhexaadana warqadda naloo keeno ma furno xataa ma fiirino ayadoo sideeda America waa taas American hindisa keenaya Iran u socda annagoo furin وعكاس إلى وضع هذا الناس كويشين إسلام باد كالي إنتاس وايدين شغالين هذا بمع المهانور لن مريكان كوحي أفولانيين أو نفتو كويس أو إيران ما كسو جوابته إلى أمر كي تبالي يري إيران وحي لقى هذا نكال صفر كي ساشينا لكن صفر كي يكون دير هذا باشي سيدي لو سو صفر كي عفرته وشري تبكى من دوّا ninkan cabaadka ka dhabaad maalin walba 5-4 jeer u sheegaya wuxuu leeyahay Iran ka sugayda Iran aawo Pakistaniintii uu la hadlay wuxuu leeyahay aawo hadda marka waa la dhiibaaliyay laakiin jawaabta ay keentay Iran inay wax walba ogolaatay inay miiska fariisanayso iyo wixii dhan wali tafaasiil laga mahay Pakistan waxa leedahay anagu waxba ma wana fiirin waa qabanay waa dhiibnay Mareykan hadda u dhiibnay Mareykanka markaas ka soo jawaabi doona waxyaabo keentay kana keentay asaga soo dhixi doonay tir hadaba marka aan tuso marka hore warbixinta sheekadan ugu dambaysa laga qoray waxa leeyahay Iran waxa ay u dhiibtay jawaabtii laga sugayay hindisihii Washington si marka dagaalka loo dhameeyo marka Iran waxay soo dhiibtay hindisihii Mareykanka loo gudbinaya kadibna dagaalka si loo dhameeyo ujeeda marka Pakistan loo dhiibay al-wasiid Pakistani leedahay dhexdhexaadiyaha Pakistan loo dhiiba asaguna marka ayadu sideedu dhiibay laakiin marka war yara soo baxay meeshan aad cajiib ah la taliyaha aayatullaahiga waa nin awood ku leh marka loo eego title-ka ama jagada uu haysto la taliyaha aayatullaahiga waa nin sare wasiirada iyo waxaan dhan ka sareeya ninkaas war ka soo daba tuuray warqadii la dhiibay ana warqada waxa ku qoran lama ogeyn warbaahinta ma ogaa karin Pakistan waxa jira anagu sideeda iyadoo Mareykan u dhiibnay Mareykan wali kama soo jawaabay warqada marka waru ka soo daba tuuray warka daba tuura marka warkaas dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin warkaas waran nooga baxay warqadaas waxa ku qoran oo ninkan sharaxaya inuusan Mareykanku wuxuu yiri inuusan Mareykanku dib ugu soo noqonayn ee gobolkan bariga dhexe u soo joogay waa ka guura meesha ninkan dagaalkii labaad
markii laga soo laabtay kadib cidda kaliya maraykanka ka adkaatay waa annagu uu leeyahay waa aayatullaahi mustashaarkiisa la taliyiis wuxuu leeyahay maraykan waa uga dhammaatay halkan waa ka duuduubana waa socdaa macnaha nimankan waxa ay warqadda ku qoreen inkastoo aan la ogayn laakiin ninkan hadalkiisa maraykan waxaas waa soo diidi doonaa hadduu aqbalo meeshaan waa ka socdaa uu leeyahay ninkan haddaba markaan idin tuso aljaziira ayaa warbixin cajiiba ka qortay waxaa ciwaan uga dhigtay hasiimada ama guuldarrada washington la taliyaha aayatullaahiga ayaa wuxuu leeyahay waxaanu filaynaa maraykanka inaanu mar dambe joogi doonin gobolkan bilaha soo socda wixiise waa ka guran doonaa washington waxa uu sheegay inay markaa kala kulantay iiraan iska caabin aanay filayn waxaana ay iiraan u qabsatay oo ay la wareegtay gacantana ku dhigtay marinbiyoodka hormus waxaa meesha ka baxay imbraadoriyadii maraykanka uu ku haystay gobolkaas waxaana hadda imbraadoriyadaasi ama boqortooyadaasi ay bilowday inay dhacdo oo ay hoos u dhacdo annagu waxaan nahay dowlatul waxiida u dhahay dowladda keliya ee markaa maraykanka ka adkaatay dagaalkii labaad ee adduunka sidaa daraaddeed maraykanka uma ogolaan doono inuu sii wado siyaasadihiisii hore ee galbeedka aasiya ninkan marka warkiisi waa cadyahay warkii marka warqadda ku qornaa inuusan rajo badan lahaynay dadka qaar leeyihiin oo waxay leeyihin ninkan warkan uu ka daba tuuraayo warkaasuu nabadaa rabnaa iyo warkaan isma keenaya leeyihin marka sheekadaasu halkaasay iyaduna ka qasan tahay marka maxaa kaloo soo baxay war oo cajiibaa sida yimid oo la leeyahay shiinuhu wuxuuba quudaraynayaa inuu soo dego carabtan la soo dego shidaalkan iyo waxa kan iyo markiisa iska dhuuq carabtan marba qofaa iska imaanaya iska degayo iska dhuuqayo meeshaan waa la yaab wuxuu leeyahay aniga waxaan noqon doonaa ninaa ku kalsoonaan doontaan idin ilaalin doonaa marka waa kaas iiraanna hadda maxay lahayd xuduurkaaga ama joogitaankaaga gobolkan bilaha soo socda waa sii dhammaana waa ka guure baashaan duqa marka markuu guuro shiineesna iiraan isku xereeyi anaa soo degayuu leeyahay carabtii ula sii hadlaha shiinuhuna wuxuu leeyahay carabay aniga waxaan ahay qofaa ku kalsoontihiin ninkii meeshaan soo degay waxa idinka dhuuqay lacagta idinka qaad waa idin waardiyeyna idin yiri wax uu idin waardiyey maaragtay jugtaa laydinka geliyay maal walbana lacag idinka daldalan jiray anaa idin waardiyeynaya saldhigyaan ka samaysan halka cid idin soo hunguriyeynaysa male yaa isgaareen dheer iiraanaa jugta ka gelis marka aniga soo dhaweey u leeyahay waxaa moodaa islaan garooba oo la shukaasanaya moodaa carabti waa wareereen carabti shiinaaskii hadda xodxodana meelaanu ka maraa haddaba markaan idin tuso warbixin kooban oo aljaziira ciwaan uga dhigtay shiinuhu waxay leeyihiin carabay annaga ayaa idiin noqonayna bedel wanaagsan oo aad ku kalsoontiin bedel wanaagsan aa idiin noqonayna carabay la socduu leeyahay marka sheekadaasu sheeko caadiya maahan warkaasu marka waxa uu ka mid yahay wararka soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay waaye qodobkaa isaguna halkaasee kaga gudbaynaa warka kale cajiibka shalay iyo daraadii waxaanu ka hadlaynay markab faransiisa hormusaan tagaa u yidhi markab ingiriisa hormusaan tagaa u yidhi maxaa ka doonaysiin waxaan ka doonaynaa maraakiibta meesha maraysaa saacidaynaa maraykanna annaga kuma xirnin iiraanna waa la hadleen waa taa marka shalay idin lahaa ogaada shalay waxaan idinku idhi haddaa xusuusataan barnaamijkii xalaan u malaynayaa ama idinku idhi miinada maasaa gashtay ingiriis meesha maraakiibtan maasaa meesha ku ceshaday iiraan hadda war ma soo saarinaa idin laakiin waray soo saari doontaa haddaba marka sida warbixinta aljaziira ay qortay mas-uul sare oo ka tirsan iiraan waxa uu sheegay inay iska caabin doonaan oo ay la diriri doonaan joogitaanka maraakiibta dagaal ee faransiiska iyo britain ay soo gaareen meel ku dhow hormus ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa warkan soo saaray
waxaana uu sheegay in halkaa la keeno maraakiib dagaal oo marinbiyoodka Hormuz iyadoo lagu marmarsiyoonayo in la ilaalinayo habsami u socodka maraakiibta halkaas waxa uu sheegay inaysan waxba ka bedeli doonin waxaana uu yiri joogitaanka maraakiibta dagaal ee Faransiiska iyo Britain ee marinbiyoodka Hormuz waxay keeni doontaa jawaab degdeg ah oo lala yaabo oo Iran ay ka bixin doonto waraa meesha isaga tagaydeen badan furaynaadiina maahan meeshaan waxaan furaynaadiina maahan meesha isaga tagaydeen walle ka teedeen nagtay sida alladii kaga bilaabo halkan madaxa ay ku socodsiinayaan meeshaan Amerikaana mari way markaas waxa leedahay waxba marsinay marka sheekadaas ayaduna wararkii soo kordhay ka mid tahay haddaba qadar xayisiisa kadib intaanu barnaamijka ku jirnay maxaa soo dhacay waan idinaya kula wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii labaad maanta waa axad qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeenu maraynaa haddaba qaybtan maxaa soo dhacay Netanyahu ayaa war soo saaray wuxuu leeyahay dagaalkii Iran weli ma dhamaanin dagaalkii Iran weli ma dhamaanin haye ilaa meel la saaro uraniumka nuclearka noqon kara iyo alaabtan iyo waxa ka nuclearka iyo wax dhamaaday marule marka waa u sii sheegaya markuu maqlay waay warkan markuu soo saaray jawaabtii Iran loo dhiibay Mareykanka marka wuxuu leeyahay la socda dagaal ma dhamaan Iran inta ay barmarsiyo u raadinayso nuclearka iyo uraniumka si ay san ay leedahay wax nabada ma jiraan marka wuxuu ka sii hordhacayaa hadalkii Trump oo mar dhow soo saari lahaa Trump asagu waxa dhan isku ah marka mar dhow markii hindisaha loo akhriyo asaaba soo jawaabaya okay way ama okay maanu soo dhihi doona marka ninkanu marka wuxuu leeyahay dagaal marka ma dhabaan marka waa arki doonaa wararkaas waxay ahaayeen wararkii soo kordhay tan intaynu kala maqneen asxaabay meel kastoo aad joogtaan like gareeya oo share gareeya barnaamijka inta aan mar kale barnaamij kale kulmayno haddii alla idmo nabadgelyo